maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلمين مركلي يسكسو نقاشا wanaagsan sidoo kale buugga sida idin sheegay wuxuu ka koobnaa 8 jabtar laba jabtar oo kamid ah ayaa hadda waxaan ka bixinay muxaadaradii hore tusaale iyo qaabkii loo gudbin karo waxaan rabaa macallimiinta inaan u sheego annaga waxa idin siinayna waa namuudaj waaye laakiin dariiqada guud ee la maraayana waa sheegnay waxa dhahnay waa dariiqada alxiwaar والمناقشة وتعليم التعاوني وعملية عصف الذهني يعني وحيابها اللي سكربوا وحيابها سواء وحال رواينا بدشان طريقة دي هوري أي هاد إلقاء 10 جديد توسك هادينا بدشان وحال روا مستقبلك أرضي أيق وح عورين كرا أرضي أيق وح قرين كرا أيق وح فلقين كرا أيق وح كلا دقديق كرا وح زبربر دقيق كرا يعني إني صوبحان أرضي حلول سو gudbin karo arday caqabad sheegi kara yani waxa la doonayo waxa soo ma ahan ardayga waxaan waaqatay waa iska tagay ma waxaan rabnaa casharkaadii yani adiga naftiga qaabka ugu wanaagsan oo niyadaada ay ku dagayso waxa waay cidii wax baraysay wixii aad bartay inay wax natiijo fiican inay ka gaarto resultigeed inuu fiicnaado oo dad wax fiican soo saari karo in ardaydaada yihiin ayaa shardi ah يعني مركا waxa loo qaatay marka dariiqadan oo loo yiri dariiqadan hal maro waa in ardayda culis ay yeeshaan waa ardayda hal abuur yeeshaan arday wax abuuri kar inay yihiin arday wax tijaabi kar inay yihiin arday wax kala saari kar inay yihiin arday wax isbarbar dhigi kar inay yihiin yani ardaydaadu waxa la rabaa arday awood noocaas leh yani aqoon noocaas ila hada xad inay gaaraan ayaa la rabaa taasna waxay ku gaari karaan waxa waay haddii adiga inta wax sharaxda isaga tagtay mid hurdaayo mid kula soconin laakiin haday tahay meeshii meel wax la wada qaybsanayo oo wax la siinayo oo maxay ahayd give and take xoog badan hadoo meesha ka jira yani waxa soo baxayso yani inay dad badan oo isla socdo oo waxtar leh inay yimaadaan ayaa marka dambe guul noocaas ah ayaa gaari doonta yani arintaas marka aad muhiim u tahay macallimiinta inay dareemaan ay la socdaan casharkan waxtadan waxa kale intaas dheer muxaadaraadka hore aan duubnayna waa ku arki doontaan waxa inta dheer casharada way kala duwan yihiin yani manhajkan wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo scope and sequence oo ah almada wa tataabuc oo ah mawduuca marka la helo inuu mawduucaas jajabo oo qayb mawduucaas kamid ah form 1 lagu qaato qayb kamid ah form 2 lagu qaato qayb kamid ah form 3 lagu qaato qayb kamid ah form 4 lagu qaato yani qaarkoodna laga yaabo inay ka bilowdaan form 2 اساس form 3 ku gaaraan qaarkood waxa laga yaabaa in form 2 form 1 ka soo bilowdeen form 2 ama form 3 ay ku eegyihiin qaarkood waxa laga yaabaa in mawduuci oo jajabi karo oo ilaa meel gaari qaabkaas u socda sidaas sida wax loo yeelan waxay tahay waxa la rabaa qofka marka la daaweynayo waa taqaanaan daawada waxa loo siiya xasb jur'aad kiskisa loo siiya casharhadan waxa la rabaa marka inay noqdaan qaab noocaas inay noqdaan adaqs wal manakh marka qaybo kamid ah in soo aragteen laga yaabaa oo hore loo soo arkay ama halkan ay ka bilaabanayso labadaba waa wax ihtimaal oo arki doontaan way waxa ugu horeeyo waxa waa ahdaaftan marka waxaan rabnaa macallimiinta inay ogaadaan hadhihi al-ahdaaf macna darama ah meesha saga qoran ujeedada laga leeyahay waxa waaye in macallinka maxaa la yiraahdaa ahdaaftan isku dayo inuu xaqiijiyo yani marka hadaf leedahay waxa isku dayaysaa hadafkaas inay xaqiijiso si hadafkaas loo xaqiijiyo marka dariiqooyin jira wasaa'il jirta qaabab badan jira ahdaafta marka oo laga rabo macallinka waxa kamid ah ardayga oo marka u dambeeyay ardaygaada oo hadafka ka leedahay amaliyadan waxay tahay ardayga inuu kala sooci karo adaqs wal manakh labada eray ee kala ah daqsi iyo manakh inuu ardayga kala sooci karo oo marka u dambeeyso ujeedkaadu wuxuu yahay inay hesho arday kala yaqaano daqsi ma cimilo iyo cimilo gooreed waxa la dhaho arday kala saari karo inay hesho waxa muhiim ah waxa ognahay aan al-manakh lahu عناصر yani waxa jira wax la yiraahdo climatic elements jira sida heerkulka kale ama huurka kale roobka kale ama precipitationka
da'aaga la dhahaa da'aaga oo kale yani waxyaabahaas oo dhan waxa waaye waa canaasir almanaakh waaye waa the element of the climate yani ardaygaada marka inuu samayn karo inuu tirin karo oo dhigi karo muxuu ahaa kan iyo kan iyo kan waxay ka mid yihiin canaasirta manaakha amba cimilada ay ka mid yihiin ardaygaada inuu yaqaano canaasir almanaakh alxaraariya heer kulka amba cimilada qaybteeda kulka ah ee cimilada ka tirsan inuu ardaygaada fahmi karo waxaa la rabaa ardaygaada inuu fahmi karo alcilaaqa sababiya bayn alcanaasir almanaakh alxaraariya cilaaqada ka dhexaysa si isku sababaan soo midba midka kale u saameeya yani midkan soo midka kale u dhalaya waxaa ognahay for example درجة الحرارة لها تأثير على محوها بريسبيتيشن أما التساقط أما الأمطار أي سامين كل هذا أرضي وحاجة يوضح مفهوم العناصر المناخية رطبة يعني وحياها قوي سيدي هورك وكله دودو وكله محل هذا فوق أما عريامة وكله ضبابك يعني النسيم وحواس إنه أرضي هذا كلام فوري كرو يعني وحاس إنه يقانه وواحد مهم كهواي waxaa rabaa ardaygaad inuu fahamsan yahay الموقع الفلكي للصومال يعني waxaa ognahay عندما نتحدث عن مناخ لمنطقة ما من الأرض waxaa jirta عوامل saameyn kolaha jirta هناك عوامل تؤثر هذه العوامل waxaa ka mid ah الموقع الفلكي amba astronomical location ka amba astronomical site ka ee wadankan uu ku yaalo ayaa ka mid ah sidoo kale arrintaas marka iyo saameynta ay ku yeelatay manaakh Soomaaliya ay ku yeelatayna ardaygaada inuu arday ku soo istintaaj karo oo kala soo bixi karo roobkeena iyo cimiladeena iyo meesha aan ku naalno iyo maxaa la yiraahdaa loolalka dalkeena uu ku yaalo inuu fahmi karo xiriirka ka dhaxeeya rabaa waa inuu yahay asbaab qillat al-amdar yani limaada الأمطار في الصومال قليلة جدا واي سؤال شخص إنه أرض هذا تحليلين كرو إنه فلقين كرو على روا إنه ليه كرو هناك أسباب أدت إلى قلة الأمطار في الصومال ومنها كذا وكذا وكذا يعني أرض تحليلين كرو أو هوشس فلقين كرو أو سببين كرو أو محل هذا إنه هلنا أي مهمة الموضوعات التي تتكون هذه الوحدة وحدتها ما هي الموضوعات التي تتكون هذه الوحدة محتها وحدتها وحكا كوبنتها الطقس والمناخ محل هذا ما هو المناخ وما هو الطقس يعني ما حكوا كل دويني من والبا تعريف كيسا أما definition كيسا يا 10 كلمات حوالي العناصر المناخية رطبة عناصر المناخ أو حلوك لا صار كوا قوين كوا محاها قللنا أما درجة الحرارة اللي حديرة kuwaas oo ay ka mid tahay humidity-ga oo ay ka mid tahay dhadada oo ay ka mid tahay roobka oo ka mid yahay cayriyaamada yani waxyaabahaas noocaas oo qoyan inuu ardaygaada maxaa la yiraahdaa qayb ka mid ah manaakh Soomaal sida hore idinku sheegay ma min darsin ilaa waxa la socdo darsi ka hadlayo ama aan dhaho ma jirto wuxdo ilaa haday jirto waxa jirta qayb ka wuxdadaas ka mid ah oo ka hadlaysa Soomaaliya hadii cimilada laga hadlo cimilada Soomaaliya laga hadlayo hadii dhaqaale laga hadlo dhaqaalaha Soomaaliya laga hadlayo hadii xoolo laga hadlo xoolaha Soomaaliya laga hadlaya hadii xoolaha maxaa ahaade beeraha adduunyada laga hadlo beeraha Soomaaliya laga hadlayo yani manhajkan wuxuu kaga duwan yahay marka darsi walba waxa la socdo qayb Soomaaliya looga hadlayo ayaa la socdo waxaan namuudaj u qaadanaynaa marka halka 10 oo ah koowaad oo ah dhaqso wal manaakh ayaa waxaan u qaadanaynaa namuudaj tii hore waxay ahayd ahdaaftii hore waxay ahayd ahdaaf ka leedahay wuxdada guud ahaaneed qaybta labaad waxa waa hadana ahdaaf waxa jirta ka leedahay 10 gaar 10 gaarka ah ahdaafta aan ka leeyahay oo maxaa la yiraahdaa inaan ka gaaro maxay tahay waxa kamid ah مفهوم الطقس والمناخ إنه أرض قاعد عدين كرو أرض قاعد إنه يحدد كرو العوامل المؤثرة في اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض أرض قاعد إنه فهم كرو وحقنا هي كل كدوشيسة وهكذا الدنيا مال قبوة مال قليل مال لحد مال هور مال هودا جاف عم بتراعي وقللنتها يعني أرض قاعد إنه هي أرض
fahmi karo waxyaabahaas yani inuu tawdiixin karo inuu xadidi karo inuu tilmaami karo هذه الاختلافات maxaa keenay limaada ay u kala duwan tahay inuu keeni karo waxaa la rabaa ardaygaad inuu fahmi karo cawaamil alati taxkum daqd aljawi waxa la dhahay jira amba air pressure ka ما هي العوامل التي تحدده waxyaabaha uu xadidayo oo gacanta ku hayo maxaa kamid ah waxaa jira ardaygaad inuu yahay ikhtilaaf darajaat alxaraarati calaa sathi al-ardi inuu sidoo kale maxay u kala duwan tahay heerkulka dhulka dushiisa يصنف انواع الرياح ومناطق هبوبها انه yahay arday kala saari karo cimilada waxaan rabaa dabeelaha soo kacay iyo meelaha ay ka soo dhabanayaan dabeesha halka ay ka soo dhabanayso iyo noocyada ay tahay inuu kala sheegi karo inuu isbarbar dhigo nasiim al-barri wa nasiim al-bahr ardayga inuu yahay arday kala saari kara neecawda badda ka imaanaysa iyo neecawda dhulka barriga ah ka imaanaysa yani farqiga u dhaxeeyo iimad walba xilliga ay xogan tahay iyo waxtarkeeda iyo saameynta ay ku leedahay ta'thiiruha fi al-ghilaaf al-jawi saameynta ay ku leedahay arday fahmi karo inuu soo saartid هذه أهداف مهمة إن لم تحقق هذه الأهداف بعد نهاية الدرس يعني هذا وحواي وح شقد هذه وح عقبة مجرته لابد أن يحاول الأستاذ أو المعلم الذي يدرس هذه المادة أن يحقق هذه الوحدة هذه الأهداف هذه أهداف تان حقيقي جنين وأهداف تان إذنك سورة قليل وحواي لم تصل الهدف المنشود كو وحجرت مصادر والأدوات ماذا أستخدم يعني سي 10 كان أوجد بيو سي أهدافتي أن لها لكي أحقق ما هي يعني مقومات تحقيق هذه الأهداف أهداف سأحقق جيو ماذا أحتاج يعني محايتها إلى استعماله وكان مركز يوف ذس وحكم ذا الكتاب المدرسي خريطة حيضية أطلس إيو حتى هذه وحكة لأهليس يعني سواء كانت أفلام حول المناخ محال أدوات حول المناخ يعني كل ما يساعد عملية التعليم وكل الوسائل التي يمكن إن معلمك أهله يعني وحيابها ساعدها كمان يعني حاول مركز وحاول أنا وحصل سيدا في اللي دنا أسكت هذا المصطلحات وكسو أرورتي أما لغيه لي كرو in this chapter وحكم ده الطقس المناخ ترمومتر الضغط الجوي يعني ومصطلحات معروفة لديكم ومصطلحات معلومات قانون يعني مصطلحات كسمرك السيدة أكو حقيقي السيدة كو فانسين لهذا أيا لغارة مركز قيمكم حتى القيم والاتجاهات قيم هرتو حال لها قفك وحو ورديسنا إني جيران مركا قدام بس وحو لها ألا إلها وحاس إنسان لي ألا يعني قيم يعني قفك إنه ليه واي يعني value وقفك لغارة واجرت كم وحاكم إذا مركا أرضي إنه يهي مدر إنسان قدرين أيو أهمية المحافظة على طبقة الأوزون وأعتقد الأوزون لاير ونجا إلى علينا أيو harmful radiation كإيمان أيو محوها قرحة oo loo yaqaan ultraviolet radiation ama dabaqata maxaa la yiraahdaa al-ash'a fawqa al-bansfijiyya naga ilaalinayo in maxaa la yiraahdaa nin qadarinayo ilaalinta ay leedahay yani waxa jira maanta waxa ogtihiin wax loo yaqaano climate change cimilada adduunka isbedelayso waxa kamid ah waxa la yiraahdaa ihtibaas al-harari ama global warming ka kamid ah waxyaabahaas dhan marka waxay keenayaan إنه ضبع سوغار دبعت سوغار طبقة الأوزون يعني أرض قيم له يعني إنه وحاس قيمة إنه كفديان وحاس إنه معنا كفديان وحا إن لي إلى إنه مهم تاي أرضي قدرنا إنه صار طوع يعني أرض قيم نوع حمبارسنا هالنوع وأرضي ودل كيس يعدون كل أول ولاية ومرج كويس وحنون كويس إنه هالنوع يعني سي أول مركز هذا الطالب ما حسمينا يا ما هي الخطوات المهمة التي يخطو بها المعلم لكي يحقق هذه الأهداف لكي يجد القيم التي ذكرناها يعني ما حسمينا يا what I can do ما حسمين كرام وكان مركز
التعلم عن طريق النشاط وحيوان لا دراسي وحكمها إذا تريد أن تحقق هذه الأهداف والدنينيسي محا سميني 10 اسكم جيدين اسمع الموت 10 انت ارضيه فيرها اوغرا على اسك تغين محا سمينيسا وان تكون التعلم عندك عن طريق النشاط انشطه ان الشديد لغا ربا يعني ارضيه نشاط محا كعين ارضيه نكعي هذا كليه معلك waa inuu noqdaa المحرك يا ninka wax kicinaya inaan taa laga rabaa oo maxaa sameynaya waxaad inay فكر waxaad inay شارك الحوار والمناقشه التعلم تعاوني يا زول يعني إنها قابك سنه امرتي تعليمك انها تعاوني هذه 10 اسك جيديsid تعليمك ليس تعاوني هذا قوت صارتي waxaad adaa ritay markaas maxaa laga rabaa musharaka يعني ardayna wax ku sheegi karo in maxaa kula doodi karo si hadafkaada loo gaaro maxaa qaabkan marka maxaa la sameeynaya si loo suuro galiyo waxaan loo suuro galiyo waxa muhiim ah khudwaadkan soo socoto توزع طلبه الى مجموعات جروبيا كدغه جروبياس marka ka dhigtid hadaa u baahatid تعين عليهم قائدا waxa u sameynaysa واحد oo horjooga qofka isleeda wax badan oo ardayda kicin kara واحد نشط ayaa ardayda muxuu ah group walba dhex gelinay hadaa u aragto waa maslaxada يعني إذا دعت الضرورة يعني قصد معها أدارة كل مجموعة وسكي قيم كرتا لكن الأحسن الوشة كلي وحكى كم إذا قابلك كله الطريقة أو أرضية وجود بين كرتي وحكم إذا إن كيانان إن كينتي قياس درجة الحرارة أجهزة وهركلك وحلو عبرنا سوق بتي هذا هدي وحعبرنا هركلك أو مانتا جلاسك أكو جرنو هركلك سواسي ده هركلكيس waa sidee اتجاه ام بالدايركشن كدبش انت سقطا halkay aadaysa yani ajizay yara thermometer waxyaabo yar fudud jira hadii iskuulka ka helaysid hada meel kale ka helaysid waxyaabaas ina soo qaadato waxa kamid thermometer ilmaawi iyo Fahrenheit kadibna waxa sameeynaa ardaydu waxa ku tababaraysa inay sameeyaan inay cabiraan yani hadii tusaale ahaan cabirtid heerkulka galaas qof qolka dhexdiisa بيئة بنانك environment بنانك عبرتين أرضي وحوس عبرة أو حإيمانيسو هرت محل عبره يعني وصله إذا ويديست محل عبرة هرت وح عبرين بحتى أيب كان محله أديك سنة وحإيمانيس أرضي يقوله أوه وحل عبره يا هركل كماش أنا أرضي أسبرك حال بس أجوبتي إتمينس جاو حبرتي درجة الحرارة وحبرتي temperature محوية يعني هركل محل لها يعني جاو حكادكتي عنصر كم ده أم بإلمنت كم ده climatic elements كميت كميدا ayaa bartay waxa kale kamida xitaa inaad hadii aweysid inaad hadii thermometer hal sawir wal barometer sawira heerkulada wax lagu cabiro ma haysataan no internetka ka soo saar google ka soo saar kadib maxaa la yiraahdaa sawira dheh waxa soo dhan marka waxay fududeynayaan ardaygaad inuu noqdo واحد يعمل ويشتغل في الفصل يعني قف مشغول سن فصل حديثة هول كهاي هي هليسة هذه سلاس أيسن أهوش هذا نقدين هدف كذي صح لها مجاري كتير بعد النهاية ماذا أفعل؟ وحي لو أسميه جميع الخطوات أدوات كي استعمالي محالها هولي يقولوا واقفت أخيرا محل يقربها يا أستاذ أخيرا محل يقربها قيمتي wixii ina qiimeysid ayaa laga rabaa qaabka u qiimeynaysa muxuu noqonayaa marka waxa qiimeynaysa su'aalaha weydiinaysa mafhuum daqs wal manaq kala saar sheeg حدد العوامل المؤثرة في اختلاف درجات الحرارة هيركل الدون muxuu kala duwan yahay لابد أن تسأل هذه الأسئلة هذه ardayda waxas oo ka jawaabo oo kala garto waxay u kala duwan tahay farqiga u dhaxeeya daqs wal manaq sidoo kale اذكر العوامل التي تتحكم ضغط الجوي كون في اهداف اهايين حد بحيث اسكو بدلين قيمين اهدافتي مدول بهدف وادين مدول بهدف كان سيلو حقيقي السؤال ليه قيمين ليه hadii wixii lagu cabirayo leh in hadafka la gaarin kara hadafka adiga misayn kartaa la ku cabiri kartaa maxaa ku cabiri kartaa su'aalaha ku cabireen waxa weydiinaysaa as'iladan hadii as'ilada uu ka jawaabo ardaygaada
أو قرطو فرق يقول حي الطقس والمناخ عوامل التي أدت إلى اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض كل هذا هدوك جوابه من هذا وحواي هدف كذا وبهنت قد حققته وقارتوي حل سيدو كله أنواع الرياح ومناطق هبوبها يعني ما هي أنواع الرياح نوعية أو ضبالها محاكمة ده من أين تهب هذه الرياح وما اسمها وما يعني يحاس مركا وحيوان لمتكا هذه لها لمركز أداء محوها جوابها أو صحة هذه لها لو وحي ويديني أرضي أو سؤالها هذه لجارو هو شادي تمت بنعمة الله سيدو كلو حال قربا يقارن بين أثر النسيم البري ونسيم البحر وحس بربرية مقارنة وحكو سمينا قورمي نسيم البحر لهلا قورمي لهلا محل لها نسيم البري نسيم البحر قورمي مدول بقورمي ماذا وما الفرق انت كسو كلا دوضان يعني ما تأثير نسيم البحر وما تأثير نسيم البري يعني محيكو كلا دوينه انت يكون بدينه نوعي كليه يعني هذه أرض هذا سؤالها نوع عسى وكجوابه يعني هذا حواي هدف كذي منشود أم وجد كذا الله وحقيقي سواء وحدود كله وأفراد أو لقرب محل لها معلنك وحواي إنه أرضي أوزو قد بيو وحلي الخرائط ماب أما كارتوغرافي والله يعني خريدooyinkaas waxa ogtiin maanta adduunyada khariidooyinka qiimo gaar ah ku fadhiyaan nolosha adduunyada qayb ka yihiin ardaygaas marka waxa la rabaa arday hadaf khariidadan inuu barto hadaf akal leedahay inay jiraan oo marka u dambeeyo inay xaqiijiso laga doonayo marka waxa waaye koow yuwadix anwaac sida hore inuu soo sheegay marka khariidada kii hore lagu soo qaatay kalaasidii hore ama form 1 kii oo kale khariidada ku qaadatay taas la waxa lagu qaatay خريطة إيه نوعية هذا إيه نوعية يعني هنا خريطة إيه مفهوم كذا يسجد يعني introduction to maps أما المدخل إلى علم الخرائط على السوقات أنت حلو قادنا مركز أنواع الخرائط خريطة نوعية ونحيي نوعية أنواع الخرائط محكليه مدول بو يعني وحقتها خريطة والمركز اللي سمينا فوق بابوس الله سميها هدف أي حرة وجيدة الله سميها وجيدة الله سميها مركز حسب المقياس الرسمي كل دونانيسا حسب محاي هذا وجودك إذا أنت اللي قليه وكل دونانيسا يعني أنواع المركة خريطة وحرر مركة أرض هذا أنواع الخرائط حسب المقياس الرسمي إذا الاستعمال سكايلك أما قياسك خريطة إذا الاستعمال بمعنى خريطة جرت مدول البو محا قياس وأحسن الله صورها بحكى له جرته يصنف أنواع الخرائط حسب الغرض واكن خريطة وجودك اللي قليه هي واحد اللي ورجيده هدف خريطة وجودك اللي الله صورها محتها وحكى له كم أرض قاعدين بيانية تمثيل الظواهر الجغرافية على الخرائط سيدا لو موجي خريطة الظواهر الجغرافية أما جغرافيكال فينومينا خريطة دوشة لو موجيناها وحكى له قرب أرض قاعدين وياهي يستنتج مفهوم الخطوط كنتور جوج إكاية أما كنتورك خريطة جوج إكاية وحلهم سي محلها محل محوية إنه أرض قاعد صار أهمية الخرائط الكنتورية للبقعة الجغرافية مهمة إلها يعني جوج إكاية وحلهم مهمة إليه أرض قاعد إنه فهم سيها نظام تحديد المواقع العالمية GPS كا أرض قاعد إنه فهم كرب GPS محلها محو نوترا سو سميسين سو شقة إنه فهم كرب كون مركز أهدافتي واي أهدافتا مركز هيشيد أهدافتا مركز هيشيد مركز ساو حقيقي لهذا الغرب مركز أهدافتا وخير إنه قارت هذا أرض قاعد إنت سمين كرب مينيس هوش هذه واي ودمات قابك مركز ليس ويديو وفي عنا قابك ده تأشيك نوع مركز لنكو عندنا أنواع الخرائط وحدودها من مركز وحكاكوا منتها أنواع الخرائط حسب المقياس الرسمي وحسب الغرض تمثيل الظواهر على الخرائط خطوط الكنتور أو خطوط الارتفاع المتساوي وحله نموذج مركز أنواع الخرائط حسب المقياس الرسمي وحنقصوا قادرين نتصالحان أيضا وحنكا دقينا نموذج أيضا مركز قادت مركز 10 وكلوا البنيين يعني محجر 10 بوكس ديت 10 واحد بس ديت 10 مركز أنت يرتع عنك ومسوا كوي بكرم لكن كلي وحاربنا إن الدرينتان إن محوها قابك اللي سكروا إنه وضع ينتهي
jidkan meesha u dambaysa jidka lagu tuso meesha u dambaysa ina gaarto adiga laga rabaa اللهم صل على محمد في مركه انواع الخرائط حسب مقياس رسمي كو ايضا نفتكر حلها اهداف وحكم ده يصنف انواع الخرائط حسب مقياس رسمي ارضي التصنيف فيه كلاسيفيكيشن نسميه قبل ما ديري جرتين قبل البين نسميها لغا ربا وحا لغا ربا يقارن بين خرائط الكبير مقياس الكبير وخرائط مقياس الصغير من حيث استخدامها خريطوين مركه مقاله ير ان رب ان نصوره خريطه waxaa isticmaalaa مقياس الكبير laamo muqdisho kaliya raba in khariido ku muujiyo haweeneyna markaas مقياس الكبير allah marka raba laakiin adduunyada مقياس صغير isticmaal yani wax soo taqana casharkan oo u tagi doonta laakiin waxa arabna waxay tahay in maxaa la dhihi jiray ardaygaad oo kala saari karo waxaas muqaaran oo ku sameyn karo yuqaarin mata kormeel isticmaalatan maxaa loo jeedaa maxdarkeeda maxaa kamid waxa kale kamid waxa la yiraahdo markuu intaan sameeyo marka waxa kale oo iska rabaa مقياس رسمي الخريطة التوبوغرافيك مابسكا إنه محل هذا أو استعمال إنه شيء تلمامي كرده أهم أنواع الخرائط من حيث الغرض وجيت كعر اللي قل لي إنه أرض شيء إنه شيء أهم أنواع الخرائط من حيث الغرض يعني حبدا ضم وخلط ويسكاف واي أدوات كل استعمالها معاكم ده كتاب المدرسي خريطة أطلس العالم طباشير يعني وحيا بكرة بدنا وجران مفاهيمته وحكم ده تصنيف الخرائط خريطة توبوغرافي خطوط كنتوري محل ربع أهمية الخريطة في حياة العلمية في حياة العملية عفوا أرضي هذا قيم كيس الربع حواي إنه قدام وفهمه قيم إنه يش خريطة نولش آذنا سامين نوع كل هذا أهمية نوع كل هذا حتى مسكح هذا وخريطة ما هو وهذا الجورج هذا هديله له جاء وكو سوير ما وضع سمينا خريطة كو سعطاء لولا خريطة مسكحة يكجري لها مصع عليها وحكم إذا وعلى ذكر التعلم عن طريق النشاط مرة البيسون نقني سيد الصحراء وصاص وإنه التعليم هذه نتاعي عن طريق النشاط وإن نتاعي يا طريق النشاط وإنتاعي ومع فكر يشارك حوار مناقشة تعليم التعاوني خرائط حائضية أطلس وحاسني خريطة وطو أرضي سؤال ويديناي لك فكر إن لا مشاركة إن لا وذاك سو أروري كلا صار يعني هوش هذا الأساس دقته هذا يعني واحد مو بدنا استعمال دونتي أريد استعمال دونتي أساس نقدامه لكن إن 10 كان حكساب سين تبع إن عكمرت يعني طريقة أسوأ إنها كجورتان سكوضيع إجراءات كذا محاكم ده إجراءات كذا كوهر اللي مدين أرضنا لو كوحو كلا صار وحكى لكم ده اسكت أرضنا آخريان مجموعة من الخرائط آخريان مجموعة من الخرائط خريدوين آخريان كدبنا مقياس رسمي حسب الغرض إنه كلا صاران سيدو كلا حكم ده أرضنا كلا غير جروبي وكلا صار مع سمعنا يا يرسم الخرائط حسب مقياس رسمي حسب الغرض نول بخريطة السجارة وصور ده جروب والبعدين خريطة أو صور مقياس رسمي أو سمي مقياس رسمي النوعية أو في عنه أسيق أو أركو إنه في عينها استعماله كذب قيمتي ومركز قيمتي أي كذب كوضم بيسو سؤالها إنه ويديس أنواع خرائط حسب المقياس الرسمي قارب بين خرائط الكبير يعني واو كوي كودك سنة واي قيبي كودك سنة ومحل هذا مركي هوري كو حددنا واي si marka ahdaafta ina gaartay ina gaarin waxa ku xaqiijin kartaa su'aalahan ku xaqiijin kartaa su'aalahan do ardayga ka shaqeey miinis oo khadariiqadii aan sheegnay ay isticmaasho hadafkaadu waa gaartay aad u mahadsantii halkan ayaa qaybta labaadna ku reebayna qaybta saddexaad ayaan u gudbin doonaa shukran murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi